بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي محمد المختار المصطفى. waxaan doonaynaa inaan maanta ka hadlo macluumaad yar oo hordhaca oo ku saabsan sharcigu muxuu si guud muhiim inoogu yahay sharciguna waa maxay muxuu kaliya morality inoogu filan waa inuu sharcigu u baahanahay haddii faldhacaan sharci la'aantii muxuu dambi u noqon waayaa adu macluumaad inta ku saabsan bay doonaa maanta inaan soo koobno markaan doonno horta inaan ku horeysino waxa weeyaan horta sharcigu waa maxay kala definition badan baa jiro oo laga bixiyay laakiin si guud hadaynu soo koobno sharcigu waxa weeyaan waa system la dejisto systemkaas ay markaasi cid dejinaysa ay awood leedahay awooddaasi ay leedahay in ay mardow ku fulinayso kuna dhaqan gelinayso markaasi waxyaabaha markaa muhiimka ee lagu dhaqan gelinayo waxa kamid ah saddex shay ugu muhiimsan marka xeerkan lagu ilaalinayo waa in lagu ilaaliyo human conductiga habdhaqanka marka dadka marka meeshaas institutionka ku hoos nool talabaadna waxa weyn protection of rights la sameeyo oo lagu ilaaliyo xuquuqda ta saddexaadna waxa weeyaan in cadaaladda marka lagu maintain gareeyo oo lagu ilaaliyo cadaaladana lagu sugo way cadaaladda si absolute looma ilaalin karo laakiin intii laga gaari karayo maalintaas la joogo horta in lagu ilaaliyo weeyaan sharciga hadaba way tusaasha meesha tali wax weyn sharcigu muxuu hadaba maxay heedayeen waxa looga maarmi waayo bilaadanku waxa la yiraahdo qofku sharcigu qabanaya marka horeba waa inuu soo buuxiyo shuruudaha badqabka fayoobida maskaxeed si kala hadaan oo dhigo waa inuu haysto xorriyadda maskaxeed qofku waa inuu leeyahay wax la yiraahdo iraadatu waaciyatu bayna nafyi wa ithbaatin fil wujuud balada qofku waa inuu leeyahay rabitaan wacyi leh kaas oo u dhaxeeya diidista iyo doonista waxa jira qofku markuu heerka gaaro sharcigu applicable buu ku yahay qabanaya oo qof waalan ma qabto macna sharaxdu waalidaasi ay tahay wali markaas si gaarsiisan heer aanu sharcigu qaban karin hadii aanba qofku yar yahay aduu qofku xayndaab uu kaga bixi karayo sharciga marka la joogo capacity-ga shakhsiyada uu kaga bixi karayo marka meesha waxa yaala hadaba qofka intaas oo dhan laga helay morality shakhsiyad haysta muxuu uga baahan yahay sharci inuu xakameeyo waxa meesha yaala hadaba waxa weeyaan qofku falka oo ku dhacaya marka horeba garwaaqsi baa jira akhlaaqeed ay qofku qaba ka soo qaadimka dilka qofku markuu geysanayo ka soo qaadba qofku ma yaqaano xeer reebay dilka amba ciqaab meel ku qoran oo qofka qof dilo waa loo dilayay isagoo gareeray amba ayad quraan oo dhan sawla taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq oranaysa oo hadii aanu gareenin hadana morality-giisu qofka wuxuu ka reebayaa inaanu qof dilin hadaba wax kasto qofku morality ahaan u garwaaqsan yahay ayaa ciqaab yeesha tusaale ahaan qofku hadii tuugada soo qaadanayo tiftiga hadii mika kaba soo qodbo qofku tuugada markuu xadayo hadii qofku uu leeyahay tuugada maan garanay waxa cadeyn oo qaabkan uu sameeyay oo wax weyn inuu qofkii alaab qaato meesha ku habooneed ka qaato hantidaasi hanti ma guurtaa marka elementiisa of tifti marka la sheegayo marka qofku waxyaabaha cadeeyo inuu falkani morality ahaan amba akhlaaq ahaan u garwaaqsan yahay waxa cadeeya qaabku shaygan u sameeyo oo qofku waxa qasab guilty buu ku dareemaya marka wax kasto oo xaaladda ku jira ayaa ciqaab yeesha oo qofku mardow kuma doodayo maanta marka hadii maxkamad la horgeeyo amba la soo qabto qofkii ma oran karayo dilku ma garaneyn inuu yahay faldabiyeed in qof la dila marka kulleeyay waxaynaan morality oo kaliya ugu joogi kareen morality-gu marka hore qofka wuxuu ka saacidaa garwaaqsiga faldabiyeedka ciqaabda absolute inta badan kama dhalato laakiin ciqaabtu waxay ka dhalataa xeer amba institution meel degan wixii uu sameeyo ayaa ka dhasha hadaba takale muhiimka wax weeyaan hadii faldabiyeedka dhaca aanu jirin xeer ka sii horeeya oo faldabiyeedka u garwaaqsan inuu yahay faldabiyeed xeerkaas ciqaab ma yeelanayo xeerku marka wuxuu shaqeeyaa wax la yiraahdo waa xeerku wax proactive retroactive ma xeerku dib uma socdo kaba soo qaadimika hadaynu dilka soo qaadano hadii imika qof dilo oo institution ka nidaamka meesha ka jira xeer aanu ka sii dejisan oo uu garwaaqsan yahay amba uu yaqaano inuu yahay dilku yahay faldabiyeed qofkaas xeer lagu qaadayo ma jirto morality tiga dambe aakhire la isku haray laakiin aakhire morality shardu yahay qofku markuu tago oo aakhiro xorriyadiisa shakhsiyad baa lagu xisaabin doonaa qofku hadaan waa leen aakhiro ma jirto
qofka ciqaabtiisu adduunyada kama dhacdo marka aakhira la joogo si individual marka la joogo aakhira uga dhacda marka kama maarmo qof kasta heerku doonaha gaarsiisnaada inuu xeer xakameeyo marka hadii kaba soo qaadaan xeer ka horeyn lahayn maxaa dhici lahaa de wax qofkii lagu ciqaabaaba ma jiri lahayn marka kulli horta si guud xeerku wuxuu si guud uga hadlaa waa inta haddaba qofku hadii bila aadanku bila xeer ahaan lahaa maxaa dhici lahaa su'aalaha imka tusaalaynu soo qaadanana waqtigii ay istileen labadii watlu alayhim nabaa ibn aadam ay qaraba qurbaan markii ay istileen labadii inaan ilma aadam ay istileen waxay ka dhaxdhacay wadageydo waxay ahayd in markii dambe markuu midi tanaasulkii kale uu dilay markii dambe kii kale xataa inuu iska aasu oo yiraaho soo ataakhi inaan iska qariyo xumaatada walaalkay markuu lahaa markii la soo waday waxa aayada ku siciga waxay lahayd min ajli dalika katabna ala bani israa'iil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fakana ma qatala nasa jami'a wa man ahyaha fakana ma ahya nasa jami'a ay gaadis taasada maxay gaadisay qofku markuu faldambiyeed bulshada dhexdeeda ka geysto bulshadaasina ay xeer ka samaysatay dambina u taqaano kaliya ta kuma koobna falku cida uu ku dhacay amnigii guud iyo kala dambeyntii iyo sharcigii meesha ka jiray ayuu wax yeelayaa marka kulli waa inta ay macluumaad ka badan waynu sii faahfaahin doonaa laakiin maanta intaas ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.